الله ونحرسته waxaa xalay magaalada Hargeysa ku geeriyootay mid kamid ah fanaaniintii ugu waaweynaa shakhsi magac iyo maamuus ku dhax lahaa hobalada qaranka ee Waaberi iyo gabadhii lagu naanaysi jiray boqoradii jaceelka Qadra Daahir Cige. Qadra Daahir oo kamid ah fanaaniinta loogu jeclaa hobalada qaranka ee Waaberi waxay maalmihii la soo dhaafay ay ku xanuunsaneed magaalada Hargeysa ee Somaliland. waxay ahayd fanaanad qaran oo jiilkeeda iyo kuwii ka dambeeyay intuba ay garanayeen iyada oo ka soo muuqatay in badan riwaayadaha iyo suugaanta Soomaaliyeed. geerida ku timid Qadra Daahir Cige ayaa mar qura guud ahaan laga dareemay dhulka Soomaaliyeed iyo meel walba oo ay ku sugan yihiin Soomaalida. Allah u naxariistay Qadra Daahir Cige oo magaalada Hargeysa ku geeriyootay ayaa isla Hargeysa ku dhalatay sanadkii 1957. sanadkii 1974 ayay soo gashay fanka iyada oo daayar ah waxayna heesteedii ugu horeysay ay qaaday ahayd ha igu eegan. waa tan Qadra Daahir oo ka sheekeynaysa sanadkii 1976 sida ay fanka ku soo gashay xilli Cabdulle Nuuruddin Axmed oo isna dhintay Allah u naxariistay uu ka wareystay raadiyo Muqdisho. anigoo aad u jecel fanka ayaa waxaan sameynay 1970 riwaayad laga dhigay iskuulka Technical Institute Hargeysa oo aan la dhigay ardaydaasi. markii ka dambeysay oo aan jeclaaday inaan fanka ku soo biiro oo ay igu horeysay 74 ayaa wax dhacday inaan la soo qaaday hobalada Waaberi riwaayadii la oran jiray dab jacayl kariwa halkaas oo aan ka noqday markaas fanaanad jecel fanka. waxa igu horeysay hees la yiraahdo afka lagama sheegto adigoon jacayladan Allah ma warwaadeen qaar kamid ah fanaaniinta hobalada qaranka ee Waaberi oo keenin la hadlay waxay u sheegeen in Qadra Daahir lagu naanaysi jiray boqoradii jaceelka waxayna fanka ka hor ay ahayd ciyaartooy kubadda koleyga ah. Qadra ayaa ka soo muuqatay riwaayado badan sida dab jacayl kariwa waraf iyo shimbiro war iskuma hayaan nin jacayl qasbaayo ma loo quuri karaa jeel iyo jacayl galbeed waa la xoreeyay iyo kuwa kale. sidoo kale Qadra Daahir ayaa heese la qaaday inta badan fanaaniintii waaweyneed ee hobalada qaranka Waaberi sida Xasan Aadan Samatar, Maxamed Nuur Gariig, Axmed Cali Cigaal, Cumar Dhuule Cali, Cumar Xasan Ruuraye, Saalax Qaasim Naaji oo macalinkeeda ahaa sida ay hore u sheegtay, Maxamed Saleebaan Tubeec, Maxamed Axmed Kuluc, Cabdi Cali Bacalwaan iyo kuwa kale. Qadra Daahir ayaa markii ay dhacday dawladii dhexe waxay kamid ahayd fanaaniintii dalka ka baxay iyada oo muddo 25 sano ah ku nooled qurbaha inkastoo dhowr mar ay dalka dib ugu soo laabatay. waagidii dambe Qadra Daahir ayaa ku nooled magaalada Hargeysa halkaas oo xalay ay ku geeriyootay. Qadra Daahir Cige ayaa fanka ka baxday sanadkii 2002 sida ay hore u sheegtay wareysi ay bixisay. Allah u naxariistay Qadra Daahir ayaa waxay kamid ahayd gabdhihii fanaaniinta ahaa ee jiilkii hore iyo kuwa haatanba ay jecel yihiin fankooda sida Xaliima Khaliif Magool oo geeriyootay sanadkii 2004, Sahra Axmed Jaamac oo 2018 iyaduna geeriyootay iyo Qadra Daahir Cige oo iyaduna xalay geeriyootay. siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida abwaaniinta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Qadra Daahir
waxayna baaqi ku sii ahaan doontaa quluubta dadka Soomaaliyeed. Mahiga